nabadda wadayaal magacaygu waa Cabdiqaadir Holac waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogta wararka ee maanta qodobada ku jira ee aad ku daawan doontaan waxa kamid ah barnaamijyo ka dhashay wararkii talaadadii ka dhacay Lebanon ayaa waxa ay ka socdaan magaalada caasimadda oo ah wadankaas Beirut warbixin ayaan kaga haynaa sidoo kale Somaliland waxa ay sheegtay inuu sii kordhiyo xiriirka ay la leedahay beesha caalamka wararka kale intuu barnaamijkan socdo aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Kenya Airways waxay hakad ku sameysay duulimaadyada Soomaaliya iyo qaar kale oo ka tirsan wadamada Geeska Afrika qodobadaasi wixii kale aan ugu soo kordhay barnaamijka iyo ku daawan doontaan kama marna xubnihii saadaasha iyo sportiska waa mar kale iyo xogta wararka waxaa isku soo wanaagsan daawadayaal 8 bisha Agoosto ee sanadka 2020 ay taariikhdu ku beegan tahay aynu ku bilownay barnaamijyo xoogan ayaa waxa ay ka socdaan magaalada Beirut ee caasimadda wadankaasi Lebanon Ra'iisul Wasaare Xasan Diibna waxa uu dalbaday doorasho baarlamaan oo xilligeeda laga soo hormariyay dadka ku mudaharaadaya caasimadda Beirut ayaa galay wasaarado ay dawladdu leedahay xilli ay sii xoogeysanayaan rabshadaha salka ku haya qarixii weynaa ee talaadadii magaaladaasi ku dilay in ka badan 158 ruux booliska oo sunta dadka kaga ilmeysiisa iyo waliba rasaas ay adeegsadeen ayaa waxa ay ku kala ceeriyaan shacabka ayadoona rasaasta qaarkeed laga maqlayay faqaaraha shuhadada Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Xasan Diib oo telefishinka kala hadlay shacabkiisa ayaa sheegay in uu codsan doono doorasho baarlamaan oo xilligeeda laga soo hormariyay si loogu gudbo xiisadda hadda taagan kama gudbi karno dhibaatada salka ku haysa haykalka dawladda iyadoo aan la qaban doorasho baarlamaan oo xilligeeda ka soo hormarta ayuu yiri arintaasi ayaa looga hadli doonaa shirka golaha wasiirada Isniinta la qaban doono qaar badan oo kamid ah shacabka Lebanon ayaa waxa ay ka careysan yihiin sida looga hortagi waayay qaraxa oo ka dhashay maqaasiin lagu keydiyay kumanaan tan oo ah maadada ammonium nitrate waxa qabiil dhexe barnaamijkeena aynu ku guda jirnay iminkana aynu eegno Somaliland wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Somaliland Yaasiin Xasan Maxamuud Faraton oo la hadlay wargeyska Afrika ee ka soo baxay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in uu kordhay xiriirka ay la leedahay Somaliland kadib markii ay la socdeen shir golaha wasiirada Kenya ay ku yeesheen magaaladaasi taasi oo looga hadlayay xiriirka Somaliland iyo Kenya Somaliland ayaa soo bandhigtay aragtideeda ku aadan dood la sheegay in ay toddobaadkan golaha wasiirada Kenya ka yeelanayeen aqoonsiga Somaliland iyo isbedelka ku yimid xiriirka ay la leeyihiin beesha caalamka wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiriir Faraton oo la hadlay wargeyska Afrika ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo doodaasi isla markaasina Kenya ay tahay dal ay daris yihiin xiriir badanna uu ka dhaxeeyo dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Somaliland ayaa isaga oo ka hadlayay isbedelka ku yimid xiriirka ay la leeyihiin beesha caalamka waxa uu sheegay in xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyo dalalka caalamka ayna diyaar u yihiin in ay sii xoojiyaan maadaama ay halgan ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen madax banaani Somaliland ayaa wali waxa ay aaminsan tahay in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale iyadoo oo aan wali helin aqoonsi caalami ah hayeeshee ay wali yihiin maamul si gooni ah isu maamula oo aan hoos tagin maamulka dawladda federaalka wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Abukaate Xasan ayaa waxa uu dhagax dhigay xabsi weyn oo laga hirgeliyay magaalada Gaalkacyo taasi oo ay leedahay dawladda dhexe maanta waxaan u taaganahay oo dhagax dhignay xabsi standard oo weyn oo magaalada Gaalkacyo qaybta galmudug laga dhisayo waana xabsiga ugu weyn runtii xabsiga wuxuu ka weyn xataa kan Muqdisho ka weyn qofka arkay jeedona bidnilaahi kariim in xabsigan xabsi qurux badan ka soo saaro tan maanta inaan halkan isku imaano aan dhagax dhigno xabsigan waxaa loo maray jid dheer kaas oo ka soo bilowday dhaqaalihii lagu dhisi lahaa iminkana aynu eegno shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa waxa ay joojisay guud ahaanba duulimaadyadii ay ku tigan jirtay kuna iman jirtay qaybo ka tirsan wadamada Geeska Afrika oo ay kamid yihiin Mozambique,
Angola, Sudan iyo wadankeena Soomaaliya waxaana Kenya Airways ay wadamada ugu horeeya ay ku sheegtay wadamada Sudan iyo Soomaaliya iyadoo sheegtay in gabi ahaanba ay joojisay duulimaadyadii ay ku iman lahayd. Shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay in ay joojisay duulimaadyadii ay ku iman jirtay magaalada Muqdisho sababo aan la shaacin kadib war ka soo baxay maamulka shirkadaasi. Shirkadda ayaa sheegtay in gabi ahaanba ay joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay magaalooyin fara badan oo ka tirsan Afrika kuwaasi oo kala ah Luanda, Muqdisho, Khartoum iyo waliba caasimadda wadanka Mozambique ee Maputo. Shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa joojisay duulimaadyadii ay ku tagi lahayd 8 dal oo qaaradda ah laguna yiri war ka soo baxay shirkadaasi. Waxa sidoo kale ay sheegtay in ay soo sheegi doonto haddii ay mar kale dib ugu soo laabato magaalooyinkaasi. Waa ka dawladda qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena aynu soo gaarnay iminka oo eegno xubinta saadaasha hawada. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qorraxdu saako waxa ay soo baxday 5:59 daqiiqo waxaana la filayaa inay dhacdo 8:10 iyo 11 daqiiqo insha Allah. Magaalada Muqdisho heerkulkeedu saako waxa uu marayaa 26 digrii centigrade. Sidoo kale magaalada Hargeysa waxa saako qorraxdu ay soo baxday 5:54 daqiiqo waxaana la filayaa inay dhacdo 8:10 iyo 16 daqiiqo. heerkulka magaalada Hargeysa ayaa saaka waxa la tilmaamayaa inuu yahay 28 degree. Kismaayo 6:13 daqiiqo ay qorraxdu soo baxday waxaana la filayaa inay dhacdo 8:10 iyo 19 daqiiqo. Digrida magaalada Kismaayo saaka waxa lagu tilmaamayaa inuu yahay 30 degree. guud ahaan barnaamijkeeni xogta wararka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa soo saaridda barnaamijka waxaa saaka qayb weyn iga qaatay wariyahayga Cabdinaasir Abshir Cali. intaan barnaamijkan la mid kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo. waxaan xusud mudan in cidii uu dhaaf barnaamijkeena dib uga baaran karto aaladaha aynu ku leenahay internet, Facebook, Twitter iyo YouTube.